dhalinyarada jaamacadaha iyo aqoon-yahanka gobolka Sanaag oo beryahanba ka cabanayay deeq waxbarasho oo dalka Itoobiya ay siisay Somaliland taas oo saamigii gobolka Sanaag ay xukuumadda Somaliland musuqmaasuqday sida ay sheegeen ayaa waxay xalay isugu yimaadeen kulan ballaaran oo ay arrintaasi kaga hadlayaan waxaanay kulankaasi ka soo saareen qodobo ku wajahan cadaalad darrada ay tirsanayaan dhalinyarta gobolka Sanaag iyagoo sidoo kale shir ay ayahooda kaga tashanayaan ugu baaqay aqoon-yahanka dhalinyarada iyo qurbo joogta gobolka Sanaag waxaana iyagoo arrimahaas iyo arrimo kaleba ka hadlaya hadaladoodii ka mid ahaa sida tan kulamo istaba jooga oo ay yeesheen aqoon-yahanka dhalinyarada mutacalimiinta madaxda jaamacadaha ururada kala duwan ee civil society-ga ee ka jira magaalada waxay soo saareen dhowr qodob oo aan halkan ka akhriyo doono dhowrka qodob waxay khuseeyeen sidii loo maamulay scholarship-kii dawladda Itoobiya ay siisay Somaliland qodobka koowaad aan halkan ka akhriyayaa wuxuu yahay sida dhamaantiin wada ogtihiin Somaliland waxa la siiyay 100 arday boqolkii arday waxaa loo qaybiyay sidii wasiirku sheegay 10 arday in la siiyay gobolka Sanaag marka laga tago wasiirku inuu arrintaas saxaafadda ka sheegay waraaqo ayaa loo soo tiray jaamacadaha gobolka ku yaala iyo wasaaradda waxbarashada ee gobolka shuruudihii ku qornaana waxay ahaayeen in arrinta GPA-ga ardayda ugu sarreysa ee jaamacadaha ka bixi karta ee aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo gobolka u soo celin karta in arrinta lagu xusho jaamacadaha iyo wasaaradda oo iskaashanaya arrintii bay sameeyeen 10 arday way xuleen magacyadoodii way gudbiyeen dhallinkii iyo waqtigii loogu talagalay bay ku gudbiyeen muddo kadib waxaa laga war helay in ardaydii dhammaantood maxay ahayd magaalada Hargeysa laga xulay 10 ardayna aanay ku jirin waxaa muuqatay in reer Sanaag loo bareeray looguna talagalay arrintaasina ay tahay dhac ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasaarad ilaa heer xildhibaan kulayaasha kala duwan ee Somaliland lagu heshiiyay in gobolka Sanaag oo in badan la dhacayo waxyaalo badan ka qatan tulin badanna uu haysto intana loogu daro qodobka labaad waxaan cambaareen u jeedinaynaa wasaaradda waxbarashada arrinta sida ugu foosha xun u maamushay oo wasiirku ugu horeeyo sidana uu ku sheegay inay tahay cadaalad ugu wanaagsanayd lambar 2 waxaan iyadana eedayn culus u jeedinaynaa guddiga amniga ee gobolka oo aanu cabanay nidaamkii saxda ah aan barnay arrinta aan uga waranay aan gobolkana runtii metelo dawladda ku metela oo arrintii aan si fiican wax uga qaban waa qolada labaad ee halkan aan cambaareen culus uga jeedinayno marka ugu dambaysa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo runtii ahaa nin markii horena ku ololeeyay reer Sanaagna ay ugu codeeyeen oo aan ku dooranay sareynta sharciga iyo cadaaladda in magaaladiisii Hargeysa iyo Gabiley intii reerkiisii deganaa uu wax allaale wixii scholarship la helay maxay ahaaytay uu karto reerkiisa arrinta waa ku cambaaraynayna waxaan leenahay madaxweyne karashada weey qodobka ugu dambeeya waxaan reer Sanaag ahaan waxaan ku baaqaynaa in iyadoo la dhameystiran yahay tashiyo iyo kulamo arrintan aan ka yeelano fagaaraha iyo aqoon-yahanka gobolka iyo mutacalimiinta ayaa arrinta ugu horeyna soo qaban qaabinaysa qodob labaad aan baaqa u tirana waxay tahay xildhibaano ayaa jira gobolka aan dooranay oo na metela oo ay ahayd inay ku hadlaan shacbiyada ee gobolka Sanaag xildhibaanadii Hargeysa wada joogaan arrinta waa la gaarsiiyay ilaa iminkana waxba kama qaban waxaan aan warhaan ku haynaa inaanay ku maqnayn xildhibaanadana waxaan leenahay doorashada insha Allah baan isu leenahay waxaan kaloo halkan baaq ugu tiraynaa dhalinyarada iyo aqoon-yahanka jooga daafaha kala duwan ee reer Sanaag ama Hargeysa joogaan ama meelaha kala duwan wadanka joogaan waxaan leenahay wax xilligan midoobi lahayn isku tashan lahayn inagu wax wada qabsan lahayn waxaan iyadana baaq halkan uga tiraynaa qurbo joogga gobolka oo aan arrintan iyo sida wax u dhacayna ku wargelinayno aan ka rabno inay midoobaan oo tashadaan oo kacaanka Sanaag ka bilowday ay qayb ka galaan waxaan kaloo baaq u tiraynaa dawladda Itoobiya oo marka hore aan u mahad celinayno inayna siiso arday inta leeg wax noo soo barata marka labaad aan u sheegayno Somaliland waa gobollo iyaga laftigooda way ogyihiin way ka warhayaan sida wax loo qaybsado waxaan u sheegaynaa dadka meesha tagaan cadaalad ahayn dawladda deegaanka oo runtii iminka curasho iyo cadaalad ay ka bilaabatay wadadin badan tulmana iminka ay guuleysteen waxaan sheegaynaa in ardaydaas tulmi iyo cadaalad dareen meesha lagu keenay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweynuhu ugu horeeyo in arrinta nagala shaqeeyaan waxaan kaloo tulmigan iyo cadaalad daradan iyo waxa Sanaag ku dhacay aan kaarsiinaynaa maamulka Puntland oo aan tarisnahay runtii oo isaguna soo qaatay scholarship ay dawladda Itoobiya siisay markuu arrintan maqlayna runtii ka dhiidhiyay oo Sanaag iyo soo ballan qaaday inay arday siin doonaan waxaan leenahay sida gobonimada ku jirto markaad aragtaan waxa nagu dhacay waxaan u baahanahay in arrinta wax nagala qabataan waxaan sidoo kale iyadana aan baaqan u tiraynaa dhammaan dadka dulmitiidka dadka xaq u tirirka dadka arrintan dareemaya dadka aqoon-yahanka madax dhaqameedka iyo dhammaan
samafalayaasha kala duwan ee Soomaaliyeed meelaha kala duwan jooga ugu dambeyn waxaan iyadana yaraysanayn waana waxba kala hadhayn arrintan aan kaarsinayna dawladaha kale ee Soomaaliyeed ee federaalka iyo Djibouti ay ugu horeyso Soomaali cadaalad darrada dhacda waxa weeyaan runtii cid kasta way u talayna wax ka qabato marka waxa loo baahan yahay marka ay cadaalad darra dhacdo waxa weeyaan Ilaahay uu inoo wada cadhoonaya marka in arrinta laga hawl galo nagalana wada shaqeeyaan codsanaynaa assalaamu calaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh intaasi kadibna waxaa dhankooda cadeeyay in ay ku raacsan yihiin dhammaan qodobada shirka dhalinyarada Sanaag ka soo baxayna qaar ka mid ah aqoon-yahankii dhalinyarada madashaasi ka soo qayb galay waxaanu ku taageersanahay qodobadii halkan laga soo jeediyay uu ka soo afartaha uu ka soo jeediyay Cabdirasaaq Cabdimaalik si buuxda dhalinyarada gobolka Sanaag aqoon-yahankeeda waxgaradkeeda waxaanu ku taageersanahay 100% qodobada uu soo jeediyay talabaad anigu dooni maayo inaan hadal badan ku daro waxaan dhaliilayaa oo aan dhaliil adag u soo jeedinayaa wasaaradda waxbarashada ee heer qaran uu hogaaminayo wasiir Faratoon waa wada ogsoontihiin waxaanu anagu ku raacsanahay qodobadii oo halkan ka aqriyay Cabdirasaaq haddaan nahay aqoon-yahanka gobolka Sanaag waxa ogsoontihiin in cadka gobolka Sanaag uu leeyahay lagu cuno meelaan loogu talagelin iyo dhul aan lahayn waxa ay go'aan ku gaadhay inay iyadu say u horumarin lahayd wax alaale wixii ka qabiyaan ay u qabsan lahayd ay ku tashato iyadu qodobada ka soo baxay shirkii soconaya 3 casho ee dhalinyaradu iyo ningarboodku iyo aqoon-yahanka gobolku uu soo saaray qodobada Cabdirasaaq uu akhriyay baan ku taageersanahay dadkii soo saaray baanu nahay dulmiga ka dhacay oo gobolka loo geystay dadkii ka dhiidhiyay oo dhalinyarta ahaa baanu nahay waxa la yeelin tashaday ma tabar yara hadii la mooday in nin wixii inta la iska qaato lagu ladeeyo waxaan leenahay kulladii meysaan waxaanu taageersanahay ka dhalinyar ahaan ka aqoon-yahan ahaan waxaanu taageersanahay oo si buuxda u taageersanahay qodobada afarta qodob ka kooban ee uu akhriyay aqoon-yahan Cabdirasaaq Maxamed Cabdimaalik waa arin aanu ku wada soconno waxaan leenahay Muuse waanu ku cambaaraynaynaa mar labaadna waanu mahad celinayaa waxaan ugu mahad celinayaa reer Sanaag buu isbaray waxa weey intaas oo reer Sanaag oo ka dhiidhiday waxa weeye dhammaan iyagoo gacmaha haysta min degmo ilaa gobol ka dhiidhiday waxa weeye cadaalad darrada baahsan ee leynagula kacay hadayna gobolada bari gobolka Sanaag aad buuga falceliyay inta yada soo wada socota oo codkar iyo caaqil iyo ciyaal iyo caydile hore uma dhicin waxaan rajaynayaa inay noqoto hoggaan cusub oo bilaabay siina socon doona midho dhalina doona waxaanu cadaynaynaa ka dhalinyaro ahaan ka aqoon-yahan ahaan ka waxgarad ahaan inaan waxaan ku raacsanahay qodobada uu akhriyay Cabdirasaaq Maxamed Cabdimaalik oo ah qodobo ka soo baxay maskaxda iyo caqliga dhalinyarada iyo aqoon-yahanka gobolka Sanaag waxaan ku darayaa waxa weeye wixii la soo qaaday ee la soo dhagdhagayay ee laga keenay Ethiopia Hargeysa iyada isku filaysiisay iyo gobolada galbeed waxaan ku sii daraynaa sheegaynaa waxa weeye annaguna sidaan uga raadsanayno Ethiopia falowgeeda waanu galeynaa annagaana ka raadsanayna Hargeysana oo caban mayno cid kalena oo caban mayno waa Yunis Sheekh Ahmed Universal TV Erigabo